ku dhawaad 45 wari oo isugu jira rag iyo dumar oo ka kala socda warbaahinada ku yaala koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo degmada Xudur ayaa maanta tababar looga hadlayay awoodsiinta haweenka siyaasadda iyo saxaafadda loogu qabtay gudaha magaalada Baydhabo. Tababarkan oo soconayo muddo 2 maalin ah ayaa isku kaaladay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed iyo hay'adda CRD. wasiirka wasaaradda Warbaahinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed iyo isudubaha wasaaradda haweenka koonfur galbeed Soomaali Saciid Sheekh Ibraahim ayaa tababarka furitaanka goobta ka hadlaya. raabta aan suxufiyiinta iyo naytay haan kaleedba awoodanka sii fadhiisideen ku qeyb qaadada fadeen guud ahaanba siyaasadda dalka doorku iyo ku leeyna lan sii fadhi tababarka la masheey xambaarsanyo طبعا هجانك إياه نيتوي أسكت دبرتك أما فكركنا مدير كورهبة وزارة ورفافنت ولا إسكولها هيتي وزارة هوانك أو CRD يجلنوين كوجيس راسي لكن قبصو مدة إياه نيتوي أسكت دبرتك لما وزارة إسكوكالة دي وجدنا كمهم سن أو كل مدة لنقبضوا أنت بدن ولي وها سوماليا لبعتين أوركيسن أما صدق كيسن والله هذا في دولة لنا هايتي سدولة ama Soomaaliya han ku kabata dhibaatooyinka dhinac walba ku deeri hadii ay saxaafadda horumarinta haweenka walbarashada caafimaadka dhaqaalaha iyo amniga dadka Soomaaliyeed wali waayahanba eedan weydiyaan in la hela dawladnimo fayla sanadba sanadkii in ka dambayto nidaamka dawliga ee Soomaaliya horan fayladahay reer koonfur galbeed Soomaaliya wali dhiib ku eeyna Soomaaliyada ha faylahaada hayta in iyoona doorsho saliimka ee ku qaadadaan ismawshe tiidana gaarkanin ee wali waha galanta midgeed ka qobsan samarka dadka wala iyo ku burbureen ama ku baaba'een shirida dawladnimo ma ee wal kasta oo dadka Soomaaliyeed aan baahanahay institution kasta burburi institutionadaas la handhisa marka ani dadka la ka dhiirigeliyo waana lan tababara ama aragdeed aqoontiga kor la hangaada in maalin walba wasaaradda koonfur galbeed Soomaaliya doorka dawladnimo ku eedan dhalinyarada walbarashada hankatay kobacday hanraabin magille sidii garab lan siifad gaar ahaan sablaanta lan siiya awoodsiin ama kobac sidii aan dareemaan siyaasadda doorkiisa ku leeyin dadka la tababaro hayna dadka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta koonfur galbeed Soomaaliya xukuumaasi wasaaradda walba dadka xukuumaasi doorkooda lehta wal isdiidow ma leemarkan walaan ku shaqeeyana wasaaradda haweenka iyo nita warfaafinta ba kobcinta dawladnimada koonfur galbeed Soomaaliya ee si wada jarana sharan gobol korno سجارة أن قبضة كورنا كل جا نوبا نقول تدو كورنا سيد تذكر هرمر شيء أنا تقال جاي وكشجع يفدي السمنار كني فرونيا بإذن الله تعالى قبل ولا رجاي إني أنا سين كويدون هذا. شكر إسماعيل أحمد أرتين TV بيدبا.